caawa farxad weyn ah inaan halkan ka soo qayb galo xafladda tan aad iyo aad qiimaha u leh waxa aan ku faraxsanahay inaan la kulmo hawsha waxa la baadida markaad baadida barigooydeed waa la hel hawl aad bilowdo ama niyadda ka jeceshahay marka aad ku guulaysato farxad ka weyn ma jirto halkan sanadkii baan halkan muddo hore aynu hawl kale wadnay baan waxaan ballan qaadnay aynu ku ballanay oo ku dhawaaqnay inaan hawshii aynu ku guulaysanay ahayd cusbitaalada labada cusbitaal ee gabdhihii wadeen oo reer Puntland ay la tartameen xamar oo aan kalsooni ahaan ku dhawaaqay waxaynu halka kan markii aan furayay waxaynu reer Puntland waxay ka badin doontaa xamar oo ay dhacday 180,000 iyo wax la jira 150 iyo 30 iyo 130 baa lagu yiri xamar bay maxsuulkii uu noqday marka ballanqaadkii ilaahay inoo fududeeyay waxaan kale ku faraxsanahay dadku digada isdhaaman digada waxaan iyo nasiibka waxaan aad iyo aad yara ugu faraxsanahay inaan ilaahay inagu xilin oo gaar ahaan aniga iigu xilin mar haddaan isu taagay hawsha iyada Gardafuu in wax laga qabto waxa kale oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa culimada Sheekh Faad iyo Sheekh Maxamuud iyo ay ka mid yihiin waxaan sheegayaa halkan waxaan horta u sheegayaa waxa tukuhu waxa la yiri tukuhu haadana waa muxuu ahaa bahalahana waa ugu yaryahay kuwana waa ugu weyn anigu way isla noqon lahayn runtii oo xukuumaddu laakiin waxaan idadajiyay Sheekh Faad oo yiri caawa halkan lagama bixi karo ilaa gacanta la taago marka waxaan isleeyahay sheekha gacanta u taag hala bixin horta gaar ahaan 5 kun baan Axmed ahaan anigu ku yabo hay'adda oo ku deeqay ma hubo de wasiirada inaan ku jiray madaxweynahaygii iyo waa ii dambeeyaa isna laakiin mar haddii halka kale la iska xaadirinayay xoogaa waxay igu noqotay inaan hungo aan maxay tahay halka kala tegin sheekh aanu fuliyo waxaan kale oo sheegayaa waxa jirtay bari kule hadda anigu madaxaygi waxbay ka muuqataa isna waxayn maayo 60 barigii 64 kiina ahayd baan u malayay arday baan dagaal waxa la dagaalay Hargeysaan joogay waxa loo ururinayay dagaal baa jiray xabashida ah iyo Soomaalida 64 baan u malayay marka waxba saa loo ururiyay wuxuu yiri nin xashiish loo oran jiray Allahu naxariisto kulli dhimay baa wuxuu yiri sanduuqa halka dhigo waxa dadkaasi reer Hargeysa iyo reer waqooyigaas oo waxay ururiyaan oo ku ridaan halay tiriyo inteeda in leeg baan ku ridayaa marka waxaan idin sheegayaa dawladdu xukuumaddu runtii iyada mas'uulka ah mas'uuliyaddeeda ka saaran tahay wadadaas iyo Gardafuu iyo kuwa kaleba waxay xil gaar ah waliba ka saaran tahay oo sida hadda aynu inay wadadaas inay furto
beeldaaj Ismaaciil waxaan u sheegayaa ugu bushaareynaya iyo in la intii ka shaqeynaysa inaanu runtii ama reer Gardafuuba inaanay kali ku noqon hawsha iyada ah waxaan kaloo u ballan qaadaynaa inaanu ku ciishoon beeldaajuhu waxa ballan qaadaysa dawladda xukuumadda Puntland sidii uu gudoomiyuhu uu sheegayay waxaan ballan qaadaynaa inay wadadaasi furanto oo si degdeg ah waliba u furanto oo aanay dib u xidhnaan baan ballan qaadaynaa haddii alla waxaan kale oo sheegaynaa sidii horeba loo sheegay waxaan soo jeedin lahaa tala ku bixin lahaa inaynu joogtayno isku tashigeenaas inaynu joogtayno oo waliba anigoo u daynaya guddida culimada iyo guddidii hawshan loo xisaaray waxaan oran lahaa sidan oo kale 3 biloodba aan mar isugu nimaadno oo fundraising-keena u samaysano waxaan kale oo aan taageerayaa soo jeedintii la soo jeediyay oo ahayd inaynu for example culimada oo kale account inay furto oo gudo iyo daba reer Puntland $1 baa ugu yaro $1 lagu rido sidii uu sheekhayo sheegay wax badan baan ku qabsan lahayn haddii alla taana waxaan jeclahay caawa inaynu maxay tahay isku raacno la iga aqbalo in account-ka la furo oo dadka reer Puntland waa dad wanaagsan waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay inaynu wax badan ku qabsan doono halka $1 ee la inoogu siiyo account-ka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan sida aanu ballan qaadnay jawaabta dawladda waad naga heli doontaan annaga iskula noqon doona mas'uuliyaddeenu annagana saaran tahay waxaan ballan qaadaynaa idin si qadimaynaa inay si dhaqso u furmi doonto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.